بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسود وهذا برنامج جارود كديارني حوسك مناسبة استيتو بكمية لوجو حسين دقمة دار السلام قبل كمردشة مناسبة دا لوجو حسين استيتو بكمية ولوجو قبطية حرونتها دقمة دار السلام مقالة هالشيء يا واحد كسوق قبلي مامولكا هير دقمة دار السلام يو مسؤولية السعودية لا محد دولة قبل كمردشة وحقلوك قبلي قبلها كل دولة برشة دقمة دار السلام هذيتها عقال وحقرد نيروها وين iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Dar es Salaam munaasabadii lagu xuseeyay tobanka ee degmada Dar es Salaam sidan ay u dhacday doorasho wanaagsan inaynu nahay kuwii markaasi la magac baxay Dar es Salaam oo ah meeshii lagu nabad galay maanta ay tahay meesha lagu nool yahay caasimadda dhan ay ku nooshahay mahadnaqaya maamulka degmada iyo cid kasta oo nagala shaqaysay iyo shacabka degmada Dar es Salaam oo dhamaantood suurto galiyay inay xafladan quruxda badani samaysanto ama ay ka dhacdo xarunta degmada waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqon doonto mid degmooyinka heerkeeda ku ah mid ugu wanaagsan inay noqon doonto ayaan rajaynayaa insha Allah guul baan idin rajaynayaa sanadkiisa nabad iyo markaasi caafimaad qab ayaan idin rajaynayaa insha Allah tantu ka sii weyn iyo markaasi nolol tan ka sii fiican ayaan idin rajaynayaa dhamaantiin aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay noo siyaadiyo waxaan marka hore salaamaya madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi ilaahay baa nimcadayna siiyey horumarka Dar es Salaam samaysay waa horumarka dalku sameeyay oo dhan maamuladii kala dambeeyay qaasatan kuwa dambeeyay horumarka ay dalka gaarsiiyeen ayay la socotaa horumarka Dar es Salaam gaadhay ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa maanta waxaan xusaynaa maalin qaran oo aad inoogu weyn wadan waliba oo caalamka ka mid wuxuu leeyahay maalin maanta waa maalintii Soomaaliland waa maalintii wadankeena xorriyadda aynu la soo noqonay 1991 waa maalin aynu wadankan quruxda badan aynu abuuranay ilaahay ina siiyey nimcadaas oran mayna tabiyo xeelad baynu kula soo baxnay waa nimco ilaahay ina siiyey waxaanaynu leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baynu ugu shukrinaqaynaa waxa nimcada ilaahay markaad ku shukrinaqdo ilaahay wuu ku siyaadinaya marka waxaanu leenahay ilaahay oo adaa mahad leh maanta oo kale wadankeennan wuxuu gaaray horumar weyn taasoo inagu aynu samaysanay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay degmada Dar es Salaam iyo horumarka maanta ka muuqda waxa ka muuqda degmada Dar es Salaam oo aan mar hore ugu dambeysay horumar aanan filayn oo aanan islahayn maanta sidoo kale aad ku arki doontaa degmada Dar es Salaam Aaqil Xasan Kacayte ku soo dhow maalintan aynu xusaynay isugu qiimaha leh dadka wax yar baa garanaya qiimaheeda dadka meesha jooga marka leego boqolkiiba 90 way maqlayaan waxay hayb garanayaan laakiin anagu waxaan garanaynaa wadadaas oo mari kari weynay oo diyaaradda markaan geed ka baxnaba geed kale lagu shaqeysay ayaan lagu joogay marka waxaanu garanaynaa dhibka wadanka uu soo maray iyo maalinta qiimaha inoo leedahay sidaynu u soo dhaweynayno qiimaheena horta sidaa weeye dadka dayartii waa yaryarka ee soo koraya waa inay ogaadaan oo taariikhda gashadaan taasi halkaasaan kaga baxaya intaa waanu sheegayaa dhallinyarada xagga kale wixii haddaynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland horumar ballaaran baynu gaadhay madaxweynaha iyo golayaasha qaranka iyo ciidamada qaranka ilaa guddoomiyaasha maamulada oo dhan horta haddii aanay talada ku wada socon oo wanaagga ay nagu hogaaminay maynaan heleen gudoomiyaha degmada Dar es Salaam gudoomiye ku-xigeenka hawiyaha taliyaha saldhigga dhammaan laamaha dowladda heer degmo odayaasha oqaasha madax dhaqameedka haweenweynaha sharafta badan ardayda dhammaan shacbi weynaha degmada Dar es Salaam munaasabadda koob-iyo-soddonaad sanad guulada koob-iyo-soddonaad ee munaasabadda 18 May awgeed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واسكتوي وزارة horumarinta beeraha ee degmada Dar es Salaam waxa sharaf weyn ah inaan munaasabadii afraad aan kala qayb galo shacab weynaha sharafta badan ee degmada Dar es Salaam runtii waan oran karo waa qaar u bisil wadaniyada iyo garashada maalintan qiimaha badan leh. marka ugu horeysa anigoo ku hadlaya afkayga ka wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasiirka magaciina kiina sharafta badan ee dadweynaha reer Dar es Salaam ka maamulka degmada iyo ka dhammaan beeraleyda sharafta badan ee reer Dar es Salaam waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin munaasabadda 18 May awgeed aan uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. mar labaad anigoo ku hadlaya afkiina munaasabadda 18 May ee tacabka badan loo soo galay waxaan doonayaa inaan halkan mar kale hambalyo uga diro ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo habeen difaaca ugu jira ilaalinta calanka sharafta badan ee aynu harsanayno ee astaantayno ee aynu dalalka faraha badan ee caalamka wax kula qaybsanayno. waxaan leenahay munaasabaddan awgeed dadweynaha reer Dar es Salaam waxay idiin soo dirayaan salaan kal iyo laaba waxaana idin leeyihiin jira oo jooga sida aad heeganka ugu tihiin qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waanu idinka mahadnaqaynaa. haddaynu reer Dar es Salaam nahay waxaynu ka mid nahay meelaha halbowlaha ah ee jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland halbowlaha oo ah hadday noqoto halgankii hadday noqoto dibudhiskii hadday noqoto ilaa maanta waxaynu ognahay Hargeysa inay ku tiirsan tahay biyaha ka soo baxa degmada Dar es Salaam iyo khudaarta kala duwan ee ka soo baxda beeraha tirada badan ee bustaanada ee waraabka ah. waan halkan uga mahadnaqayo dadka sharafta badan ee maalgeliyey ee habeen iyo maalin u taagan sida ay u buuxin lahaayeen kaalinta ay kaga jiraan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan garayaa oo aan ogahay dadka reer Dar es Salaam inay yihiin dadweynaha kuwa ugu mudan ee haddii ay noqoto arrin qaranka ku taxalluqda isu taaga ee qaybtooda ka qaata waana la ogyahay. taana waxaynu ku muujinaynaa xafladan qiimaha badan leh ee nafta loo soo huray ee aynu ku muujinayno jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu adduunka wax kala qaybsanayno. waayo waddan wan oo adduunka ku yaalla wuu leeyahay maalintan oo kale waa la weyneeyaa waa la xusaa. innagana waxay nagu taagan tahay dhiig maal tacab iyo hanti fara badan baa loo soo huray. intiina halkan joogto maanta Dar es Salaam ee ka soo qayb gashay dabaaldegga 18 May aynu dib ula soo noqonnay xornimadeennii naga wantay dhammaantiin waa mahadsantihiin. marka koowaad waxaan halkan salaan uga dirayaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi ilaa xasan ibraahim cabsiye gudoomiyaha degmada Dar es Salaam iyo inta u dhaxaysa maamulka qaranka. waxaa intaa ay raaca dhammaan haweenweynaha abaabulka soo sameeyey quruxda badan leh ee reer Dar es Salaam oon la'aantood barnaamijkeeniba qabsoomi kareen. waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo waan idiin mahadnaqayaa. sharaftii degmadana dumarkaa leh dumarku waxaan leeyahay ha noolaadaan waa halbowlihii qaranka. idinkana salaantaasaan idiin soo diraya aan idinku mahadnaqayaa. hadalka intiisii badnayd waa layga horreeyey. arrintuna waxay ku saabsan tahay waa topic keliya oo arrin ku saabsan 18 May aynu dalkeenna dib uga soo noqonnay xornimadiisii. markaa dhammaan waa laga wada hadlay arrinkaa. waxaan u dirayaa salaan dhammaan dadka reer Somaliland ee ku kala nool. Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato.
cadowgeennu ha jabo calankeennu ha jiro kiika xumi ha dhaco muuse bixi ha noolaado cadowgiisu ha jabo calankiisu ha jiro ixtiraafkiibuu soo taabtay wuxuu qabtay maraykanka way maroora dilaaceen annagu waxaannu leenahay kii maroora dilaacay iyo kii dhimanaya iyo kii meelbaas ka dhacaya waannu ku faraxsanahay muuse biixi istixraafkaa soo taabtay alxamdulilaahi shukri baannu leenahay waxaannu leenahay ummadda somalilan horay martay xamar annagu ma rabno dooni mayno kama hello ma rabno baan ku idhi waa dalkaa soomaaliyeeda waalaha yaga jaarkayaga somalilanna horay u martay idinka iyadaaba idin xukumiba nabadgelyadeedu way adkaatay ilaahay bay nala jira ilaahay iidankiisa nacaska iska madhaacinayo cadowga istusaya meelaha ka hadlayo cadowgaaga eeg hareerahaaga eeg hoostaada eeg waxaan ku idhi waxaannu leenahay annagu waxaannu idin leenahay haddaannu nahay haweenweynaha degmada daarasalaam waddanka ku wada nool somalilan oo dhan annagu mid walba waannu codayna mid walba waanu soo saarnaa mid walba somalilan baanu jecel lahay laakiin waxaannu idin leenahay dee kuraasidaad ku yaacaysaan aad boobaysaan aad aflagaadadii cayda dadka isusaysaan iska ilaaliya calankana ilaahay noo adkeeyo ilaahay madar khayr qamo caam oo ballaaranoo ummaddoo dhan gaala ilaahayna siiyo abaaraha ilaahay naga soo jebiyo calanka ilaahay noo adkeeyo mudanayaal iyo marwooyin iyo odayaal iyo sulaadiin iyo cuqaal iyo maamulka degmada caarmiga ciidamada jumhuuriyadda somalilan madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan labada golo qaran waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi intaa kadib waxaynu maanta u taagannahay 18 May oo loo soo maray ninkii garanaya wakhtigaa joogay wixii ka dhacay ee loo joogay waddanka baqas waxay nagula dagaalantay wixii ay haysay gebi ahaan waxbay nagulama hadhin cirka iyo dhulkaba degmada daarasalaam waa degmadii mujaahidiinta somalilan halka ay ku aftirsadaan halgankii qayb libaaxay ka qaadatay degmada daarasalaam maantana horumarka qayb libaaxay ka qaadanaysaa biidnillaahi tacaala waxaa jira maamul wanaagsan baa idii jooga horumar wanaagsan baa degmada ka socda waxaa la rabaa inaad degmada maamulka aad si fiican ula shaqaysaan inaad horumarka ka qayb qaadataan waayo horumarkood ka qayb qaadataani waa horumarka somalilan oo aad ka qayb qaadataan weeye horumarka degmadow waa horumarka somalilan degmada daarasalaam maanta degmooyinka kale waxbay dheer tahay waxay dheer tahay degmada daarasalaam waa meesha keliya ee quudisa caasimadda jamhuuriyadda somalilan sidaa daraaddeed degmada daarasalaam waxaa looga baahan yahay dadkeega oo aad iyo aad aynu rabnaa inaynu gacmaha isku qabsanno horumarkeenna sababtoo ah maanta waa maalintii ay dawladdii ka talinaysay u talinaysay markaa shacabkan reer waqooyi ay xasuuqa ku ridaysay dadkeenna waqooyi maanta in yar haddaan idinka xasuusiyo cadceedda aad iyo aad baad u xamili lahaydeen sababtoo ah waxa inagu soo duulay cadow inaga xoog weyn waxaynu ognahay maanta oo 10 kilomitir u jira meesha leedha laasdhuure kolley waa qaxootigii laasdhuure moo taqaanaane waa dadkii idinka laydinku bedeli lahaa ee la yidhi dadkan markaanu xasuuqno dad kale meesha aynu ku beerno marka maanta waa maalintaasi waa maalintii dadkeennu ka jibiyeen waa maalin qarankeenna ku weyn oo aan la ilaabi karin kolley inteennaasi dhammaanteen markaasi uun yaryareen baan malaynayaa anuu waa yaraa laakiin in badan baa iga yar maanta ninkii maalintaasi dhashay maanta waa 11 jir kolley waa aabbo laakiin xanuunkii soo gaadhay dadkaasi maalintaasi dadkeenna inaga waaweyn baa garanaya odayaal fara badanoo maanta bartan jooga kolley way garanayaan markaa maanta waa maalintaasaan xusaynaa runtii degmadeennuna waa degmo ballaadhan waa degmo ka ballaadhan degmooyinka kale ee ay la faca tahay sababtoo ah maanta waxaynu ku faraxsannahay inaynu nahay meesha keliyata ee laga waraabiyo caasimadda kolley dadka degmadu ka qarisantay degmooyinka kale waanaan ku faraxsanay intaa qofkee nagala soo qayb gashay
waxay muujinayaan dareenkooda ku aadan inay degmadoodu inay ka fac weynta degmooyin kale salaan kadib maxaa isu keenay maalintaa isu keentay maanta maalin baa isu keentay haddaba maalinay maxaa tahay waxa weeye waxay tahay maalin wax adduunyada ilaahay ku bixiyo wixii ugu weynaa rabbigu ina siiyey waa dawladii calan الله ينولي بي الله ينولي بي الله ينولي بي الله ينولي بي هو كرتكو إسلامي إلهي يقصر يا الله ينقيه الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذه وحوي وحنكون غنيا وحوي ما أنت تنسى يكون تمد نين أركي كما ورمي كرو نين أركي كما ورمي كرو niman aragayna warkagama dhigi karo waayo aayad deeqdan rabbi hayna siiyo laakiin siday inagu soo gashay waxay inagu soo gashay si aynu nafteen iyo maalkeena ugu hurray hadda waxaan leeyahay war kolkaynu naftiya maalkeena tii aynu u hurray guusheedii joogno in maantana milcdaan xamilo waxaan ku noqonayaa waxa weeye dadkan isugu yimid dalka markaan sidaa weegan saa wada jalaacay waxa weeye intii aragtay hawsha ka dhacday meesha intii ogeyd way yar tahay waxaan u hoyday xalay udaan inaan ka soo qayb galana waa niyeeyo dalka intaa waa soo ruri maxaan uga jeeday maxaan ka doonayay maal umaan soo doonan magacna umaan soo doonan inaan muuqa sida laga yeelay arkadaan ilaahay ka rajaynayo doonayo weeye alxamdulilaahi rabbil caalamiin waana waxaan leeyahay madaxweyneenu ha noolaado muuse bixi cabdi ha noolaado kii diree taliya khayr ku taliya allaha ka yeelo dawladeenna tii dhisantee la soo eegtay cid eegan allaha ka yeelo allahumma salli calaa maxamed innagana dad islaam oo shahaadada qira allaha inaga yeelo waxaan ku soo gunaanadayaa dawladeenna iyo ciidankeenu allaha ilaaliye waraabe iyo libaaxba way naga oodeen innagana maxay nala gudbaan haddaba dacwada iyo guduudanaha inaynu ka ilaashanadee hoosta siqaya dacwada iyo guduudanaha inaynu ka ilaashanno oynu gabasheenna ilaalinaa rag iyo dumarkaasi ay nala gudban waxaan leeyahay odaygu wuxuu xaq u leeyahay waxa layidhi odaygu kolkuu gaboobo dardaaran iyo ducuu leeyahay meel kasta ay joogaan weliba gaar ahaan degmada daarusalaam oo ah degmo aad u qiimo badan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha degmada ku-xigeenkiisa iskuduwaha beeraha iyo waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi ku-xigeenkiisa iyo golayaasha qaranka maanta waa maalin qiimo badan annagoo ka wakiila wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu aad ugu hambalyaynaa dadka xoolodhaqatada ah oo markasta si fiican noola shaqeeya waxaanu maanta aanu leenahay waa maalin qiimo leh hadal badan looma baahna insha allah waxaan leenahay maalinteeda ilaahay ha nagu gaadhsiiyo maalin qiimo badan caafimaad iyo barbarka ha nagu gaadhsiiyo aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahad celinayaa madaxda degmada oo iyagu mar kastaba si fiican noo soo dhaweeya noo shaqeeya ilaa halka maanta aynugu soo gaadhnay baa iyaga ogaa oo aan maanta waxba qarsoonayn waxaan maanta furiin u dirayaa ubadka kuwa ubaxa iyo kuwa ka dambeeya iyo kuwa ka waaweyn ee waxba kama noola dhexdiyo wax yar baa ka nool dadka dhexdiyo iyaga ayaa maanta waddanka qabsan doona ilaahayna ku guulaynayaa oo nuugu ducaynaynaa in ilaahay calan khayr iyo dowladnimo caama uu siiyo
وإلهي نغني كلي مصيبة ولا أساس نجي مقحمر لغيري وحينو سؤالي سيدي دولة المشارك سيدي لينو بابين لها أي فرماج كتري إلهي سكا مدين سومانا ليه جبوتي وحباو الموارين دمير كل بدأوا بيشكتني لابد ما ينهم كلابا وبابي عكتوسي أي دولة نفسها إلهي سكا مدين يسيق بالرواي وعن إلهي كبر يعني إلهي على كين يدلون إلهي نوعد كيو وإن ما من دماغها كبول يسنو نبتلي إننا نحجسنو ومعنتي على كينا وحن لهي Soomaaliya ay garo Soomaaliland garowaatad gabagabayseen goonida u fiiqdeen aadkuna ku geylamay waxba aniga hay talin haynana tusaalayn cawaalow calankayga oo weliga cadowga ha u jabin mar walba waxaan leeyahay ajiro dalkeena iyo dadkeena iyo calankeena kor ilaahay u qaado cadowga Soomaaliland jabo على أمور الدنيا والدين وبعض حموينها بقمة دار السلام يا عاشا اللي يرضى بسوين الدقمة الله قرنك جمهورية الصوماليلاند أمانتك يوم حوينها قرنك جمهورية الصوماليلاند وضع موسى بيحي عبد وحن أمانتك بقمة السلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waxay tahay mid hadina uu yahay macasna loo sheeg maayo 18 May waa maalin qaali inagu ah waa maalin dhiig badan loo soo shubay hooyooyin badan ay u soo goblameen maanta dad fara badan oo garanaysa ay u soo shahiideen caruur badan u soo dhinteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala guushiina siiyay wanaga harsanayna dawladnimadeennii iyo nabadgelyadeennii iyo dhulkeennii ilaahay naga kaxeeyey nabadii nagu soo celiyey oo cadowgii nooga hiiliyey maalinta horta weeyaan maalinta marka ilaahay baynu waxa waajib inaan ilaahay ugu mahadnaqno waayo ilaahay wuxuu yidhi lan shakartum laa siidanakum walain kafartum in cadaabi lashadiid ilaahay wax soo ilaahay alxamdulilah ma lihin haddaba cadceedduna way kulushahay cidda cadceeddaa gaar u yeelatay maanta ilaahay dembigiinna ha dhaafo waa dumarka waayo raggu waa kaa dabada gidaarka wadageliya halka ku wada jira sidaasaa halkankiina haddaba ragga ugaga badsateen oo kuwii raggooda la laynaya baa haydeen oo hooyooyinka ahaa markaa maase yaroo tiriyey maasayro tii 2005 oo aan badnayna oo Soomaaliland tiriyay insha Allah halkan ka sheegaya lixdankii aan taaqadii dhacday haatan laga doogay Soomaaliland horumar bay gaadhay heer sare nabad lagu irtiyay baa dhextaal hirar barwaaqaade waa ka calanka tawxiid huwane hawadu haysaaye haykalka iyo dhismihii dawladnimo waa horu socday Allah hibada bixiye runtii hananay guushi الله هبدا بحيار انتي هناني كوشي اعتراف كان لغو هيغن يهي لغونا هوشوري maxaa haatan laga doonaya waaba la hayaa sida hogasha roobka ayay dunida nagu soo hiranay maanta qasheen dhashay waxa dhulka loo qaaday hareeraha ka joogsada nimcadu way hibatay qaysaaye balankeenu waa horumar iyo hiigsin nololeed iyo tobankii iyo 3 milyan masha Allah waa xaqiiqada waxaan hubatay oo maanta jiilka dhashay iyo xurriyad ku noolaadaan waxaan kaga baxayaa halkii ku soo gabagabeynayaa waxaan hambalyo ku bogaadinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybahooda kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland odayaasha saddexda gobol qaran dhammaantiinba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Allah yabaarik waxaan u mahadnaqayaa kolley waa laga sheekeeyey taariikhda badan ee ay leedahay maalintani 18 May
maalintii la soo noqoshada xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ay ku baxday naf badan iyo maal badan iyo hanti badan baa ay ku baxday maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waynu harsanaynaa midhaheedii oo maalintii aynu duurka galnay jahiintii raggii ka dagaalamay maanta waa kuwa hogaaminaya inagoo awalan u mahadnaqayna subxaanahu wa tacaala ilaahay nagu nimceeyey oo amnigu waa shayga koobaad allahuma innii as'aluka amna waliimaan iimaankii amnigaa isku xiga markaa kolley inta badan intaana hawsha gelin waxaan u mahadnaqayaa dumarkaa qiimaha iyo qaadaha leh ee sharafta leh allah in sharfo ee ilaa xalay ilaa xalay nala shaqaynayey xafladda quruxda badan leh qiimaha leh hadday sida calaamada loo xidhan tahay hadday dhisaanka tahay intaba ka qayb qaatay waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin runtii iyagoon ayna u kala hadhin degmada daarasalaam oy tuulo walba meel walba ka yimaadeen waxaanu sababta aynu mar walba khaas uga sii dhigaynaa dumarku waa maxay waa runtii waa maxay cadceedday inoo taagayin sida cabdiqaadirba sheegay rag qaar baxa qaar soo noqda waynu mahadnaqaynaa allah yabaarik waxaa kaloo mahadnaqaynaa waxaa kaloo iyadana aad ugu mahadnaqayaa iyadoo si qurux badan ay isu soo abaabuleen bulshada qeybeeda kala duwan hadday tahay wasaaradaha way kow ka tahay wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii inooga timiday ilaa Hargeysa inay nagala qayb qaadato iyagoo boorarkooda iyo nidaamkooda wata waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka oo Mustafa Cabdikariin iyo nagala joogaan Cabdiraxmaan waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada waxaa ka mid ah muxuu ahaye wasaaradda hawlaha guud intuba way nala joogaan waanaan u mahadnaqaynaa allah yabaarik bawlaana sida qiimaha leh nagala qayb gasheen waxaa kaloo mahadnaqaynaa hirtuulayaasha oo intooda badan iyagoo wata calaamadoodii dumarkii haweenkii carruurtiiba nagala soo qayb galay tuulo walba way ka yimaadeen aad iyo aad baan igana mahadnaqaynaa rukniga labaad ee ugu muhiimsan ee amnigana inoo qaabilsan cuqaasha qaar Hargeysa nooga yimidday qaar meelo kale nooga yimidday waxaynu leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin qalbi furana waynu ku soo dhaweynaynaa sida qiimaha leh nagala qayb gasheen intaa haddaan ka baxo mahadnaq ka baxo waxaan ku soo koobayaa kulley cadceed baynu taagannahay wakhti badanna waynu taagnay waxay muujinaysaa isku duubnaanteenna iyo inaynu muxuu ahaaye xilligaa u wada joogno cadceedda waa qiimaha ayaadna gashateen annaguna waynu ogsoonnahay biidni illaahi tacaala sida qiimaha leh iyo qadarinta leh eed noola shaqayseen waxaanu ballan qaadaynaa insha allah inaanu si cadaalada inta aanu meesha joogo aanu si cadaalada inaga shaqayno insha allah nagu shaqaalihiinnin baanu nahay waayo garbihiin yar ku taagannahay baynu nahay aniga iyo maamulkaygaba waxaanu habeen iyo maalin heegan u nahay inaanu idinkayna shaqayno oo runtii hooyo dhibaataysan ama qof dhibaataysan haddii wax soo gaadhaan warwarkeeda iyo dhibteeda wataan xagga waxbarashada runtii intii u dambaysay weliba khaasatan sheekh maxamed weyne la hadlay waxaanu rajaynaynaa insha allahu ramadaantii dhaweyd naga baxay ramadaanteedii inay arday badan oo xufaadii oo xagga diinta ka dhisani ay noo soo baxaan waynu ku guda jirnaa intaasoo meelood baa imika aad uga socdaan madaaristu daawadayntaasi waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkaasi gaarka aad ka diyaarinay 18 May ee xuska lagu qabtay degmada Daarasalaam waa Samatar Maxamed Maxamuud iyo Saciid Xaashi iyo dhamaantood ku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.